السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta jimco wanaagsan taariikhdu waa 24 Oktoobar sanadka 2025 qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. xog muhiim ah ayay faafiyeen warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah taasoo ku saabsan shirqool halis ah oo Israa'iil iyo Mareykanku ay la damacsan yihiin Gaza. Erdogan oo durbaba weerar afka ku qaaday Israa'iil kuna eedeeyay inaanay nabad doonayn oo ay doonayso inay xabad joojinta jibiso Mareykankana fariin u faray. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimaha oo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona. Hamas oo sheegtay in saacadaha soo socda ay dhiibi doonaan laba ka mid ah lafihii Yuhuudda ay hayeen. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warar saakay laga soo sheegayo halkii gargaarka ay marayeen oo markaa ay ishortaageen kooxo midigta ah oo Yuhuud ah oo diidan wax gargaara in la geliyo Gaza. haddaba wararkaas oo ah kuwii ugu dambeeyay saakay oo jimcaha ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbinaynaa. inta aan ku jirno warar dheeraad ah hadday soo kordhaan waan idin barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo jimcaha ayaynu guda galaynaa. qodobka ugu horeeya waxaynu ka dhigaynaa Hamas ayaa sheegtay saacadaha nagu soo aadan inay mar kale dhiibi doonaan laba ka mid ah lafihii Yuhuudda oo ay sheegeen inay ka soo heleen burburka hoostiisa. haddaba haddii labada la dhiibo oo ay noqdaan Yuhuud waxaa xisaabta guud ay noqonaysaa sida la leeyahay inay noqonayso 18 inay dhiibeen oo markaa ay ku soo harayso kaliya 10 lafaha dadka Yuhuudda ah oo markii hore asal ahaan ahaa sida la sheegay 28. haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. Israa'iil ayaa la sheegay inay diyaar u tahay qaabilaadda dufcad cusub oo ka mid ah lafaha dadkii laga haystay. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan hay-adda wararka u faafisa Israa'iil in markaa Israa'iiliyiintu ay u diyaar garoobayaan gudaha Israa'iilna uu ka socdo diyaar garow cidda ay noqon doonaan lafaha la sheegay in la soo marsiinayo hay-adda ICRC kuwaasoo la keenayo saacadaha soo socda. warar kala duwan ayaa sheegaya in dabayaaqada isbuucan ay suuragal tahay in la soo dhiibo kuwa kale halka saacadaha soo socdana la sheegay labada maxbuus ee Yuhuudda ahaa lafahooda in la dhiibi doono. marka hawshaasu marka waxay u muuqataa mid socota iyaguna waxay keeneen lafa fara badan. laakiin waxyaabaha la yaab kale oo newskan ku akhrinay saaka waxaa ka mid ah lafii Falastiiniyiinta ee la keenay qaar badan waaba la garan waayay. waa la yaabay waxa leeyahay waxan maxay yihiin oo macnaha dadkanu waxay qaab kasta markii loo fiiriyay suuragal ay noqon weyso waa la iska aasaaliyeen markii dambe. marka laba arrinba waa lagu tafsiiriyay qalabka Gaza yaala iyo habka wax loo baaro oo awoodiisu yar tahay iyo Israa'iil oo lugooyo kale ka wada oo lafa meelo kale yaala iyo wax badan maaragtay ku soo dartay haddii rabto. marka waxaa la yiraahdaa umum dadkii waa la iska aasay waana loo duceeyay haday dadkii Falastiiniyiinta ee shuhadada yihiin in Ilaahay uu shahaadada ka aqbalo. halkaas marka hawshaas maraysa. dhanka kale warbaahinta Mareykanku waxay bilaabeen warar sheegaya qorshe lagu tilmaamay mid halis ah inay wadaan Mareykanka iyo Israa'iil. haddaba qorshaha muxuu yahay? haddaba Israa'iil Mareykanka waxay ka dhaadhicinaysaa lagu leeyahay in Gaza loo qaybiyo labo. waxay leedahay Hamas ciyaar ma ku dhiibayso hub. marka Gaza waxaanu u qaybinaynaa laba qayb Israa'iil maamusho oo dib u dhis iyo horumar iyo nabad iyo wax kasta laga sameeyo iyo qayb Hamas maaragtay maamusha oo Hamas ilaa hubka ay ka dhigto dadkaas ay gaajeysnaanayaan. marka waxay ku qasbanaan doonaan sida iyagu iska dhaadhicinayaan waxay ku qasbanaan doonaan qaybintaasu inay ku qasbi doonto dadku inay dhanka wada yimaadaan Hamas kaligeed ay meesha ku soo harto. marka waa tactic cusub waaye laakiin
falanqeeyaashu waxay ka yiraahdeen iyo sida ay u hirgeli karto waa u tagaynaa. marka hore aan idin tuso jaridda la yiraahdo Al-Qudus ayaa saakay qoraysa. waxay leedahay journalka Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay Tel Aviv iyo Washington waxay ka shaqaynayaan qorshe ku saabsan qaybinta Gaza. muujada marka warbixintu sii socota marka waa asaasa loo qaybinayaa qayb Israa'iil la hoos keenay qayb Rasaan. ma dhici kartaa marka dadka falanqeeyaasha inta badan waxay isku raaceen may waxaas wax dhici kara ma reer Gaza haddii la qaybin karo haddii wax lagu sameyn karo mar hore iyadoo madaafiic ku socoto ayaa la kala qaybin lahaa. Israa'iil wax kasta isku dayday meeshan waa aamin xagga aada kan waxaas ma ku socdaan. marka hadda maadaama Mareykanka iyo ay garowsadeen dadkan inaan la haajirin karin oo dhulkooda xoog looga qaada karin marka in la qaybiyo oo qaybtaan nabada qaybtaan nabad ma aha qaybtaan saana marka waxay yiraahdeen dadkaasu dad la qaybin karo ma. marka Mareykanka qorshe kasta iyo nidaam kasta uu dago ma soconayso. meeshan waxa kaliya oo lagu hirgeli karo waxa waaye see lagu helaa dawlad Falastiin markaas diyaar waa Xamaas hubku way dhiibaysaa. laakiin inta Israa'iil diidan tahay dawlad Falastiin oo iska daba wareeg ku jirto ayaguna hubkooda inay dhiibaan lagama yaabaa. Xamaas waa dhiibi doonaa heshiiskay ku jirtaa nin walba saasoo ku socona. marka hawshaas halkaas mare. qodobka kale ee cusub ee saakay barnaamijkeena aan ku hayno waxa kamid ah ninkii Erdogan ahaa weerar kale saakay toos ku qaaday Israa'iil. luqaafo iyo iska daba wareeg iyo isdaba marin iyo heshiis jabin haday noqoto Israa'iil waayo. nimanka Xamaasa anaga damiinanay niman nabadu ka go'an tahay waayo. wixii lagu la heshiiyay inay fuliyaan diyaariyay. waxa luqaafada wada iska daba wareega wada waxa dhan waa nimankan u dhahay Netanyahu iyo kooxdiis dhagahu ka garaacasak. haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray wuxuu leeyahay Erdogan wuxuu ku eedeeyay Israa'iil inay ku tumanayso heshiiska. madaxweynaha Mareykanka Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu si cad u sheegay xarakada Xamaas inay iyadu tahay qolada sida dhabta ah u meel marinaysa wixii lagu heshiiyay iyo fulinta xabad joojinta. laakiin Israa'iil wuxuu sheegay inay iyadu tahay mid ku tumanaysa arinkaas oo doonaysa in heshiiska uu jabo. wuxuuna dhanka kale ugu baaqay Mareykanka inay cadaadis run ah saaraan Israa'iil si ay u fuliso arinkaas. weerarkaasi waa warkiisu waa cadi. xalayna maxaynu ku soo qaadanay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga diyaarana ciidankeena waa diyaaradeen. waatii Netanyahu walaa ciidan Turkiga ma arki karo Gaza yimaado. marka meesha waxba ka jira nimankan Turkida iyo Israa'iiliyiinta way is arkayaan. waataan idin sheegay arintoodu miiska waxay saaratahay Trump ma dhankan xagee doortaa Turkiga muhiim u yahay. dagaal saddexaad laga baqaya hadii dagaal saddexaad dhaco Turki uu ka leexdo uma China iyo Russia iyo dhulkan aad maxaa u soo haray. marka waxyaabo badan marka meesha isku jira. marka waa la arki doonaa kulay Trump ninka Erdogan ahaa runtuu u sheegay. Trump runtuu u sheegay wuxuu yiri nimankan waa diyaar nabadu way ka go'atay Xamaas waxba yaa la xagxagani. shaqadii way wadaan burburkii hoostiisa iyagoo qalab fiican haysanay maalin walba 2 iyo 3 soo saaraan. nimanka lugooyada wada ee nabadda rabin waa nimankan u dhahay. marka sheekadaas halkaas maraysa. qadar xayisiisa kadib waxaan ugu gudbi doonaa arin kale oo muhiim ah oo ku saabsan xogaagii gargaarka ahaa ee Gaza galay oo maanta caqabad kale ay soo foodsaa. barnaamijka qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa arin kale oo soo korortay. gargaarkii oo awalba yaraa Gaza la gelinay oo Israa'iil ay halka haysay reer Gaza iyadoo lagu heshiiyay wax kasta ay haddana gargaarkii diidan tahay. hay-adihii qaylinayaan ayaa haddana intii yareed baabuurtii yareed ee galaysay ayaa saakay waxa is hortaagay qolo Yuhuud ah oo la yiraahdo Yuhuudda midigta kuwa mayalka adag. waa Ben Gvir iyo dadkoodii iyo Smotrich iyo dadkoodii ayaa baabuurtii hor dhooban. maxaa dhacay Gaza ma galayaan? maxaa dhacay gaaja ku dilayna? oo maxaa ugu dilaysaan gaaja dadkiina waa la idin soo daayay. maba uu ogolin kuwaas. ma wax la abaabulay fidno iyo dhibaato laga shaqeynayo u fiirsada.
haddaba markaan tuso telefishinka aljaziira saaka wuxuu leeyahay qolooyin dhinaca midigta ah oo yahuuda ayaa waxay jareen waddada iyagoo ishortaagay baabuurtii gargaarka u waday gaza iyagoo ku sugan deegaanka la yidhaahdo karam abu saalim haddaba warbaahinta israa'iil ayaa saaka ka hadlaysa kooxdan midigta oo mayalka adag inay hordhooban yihiin baabuurtii gargaarka waday ee ku sii jeetay gaza waxaana arrinkaa ay ka samaynayaan meesha xuduudka la yidhaahdo macbar karam abu saalim fiirsada waa hordhooban yihiin askartiina way daawanaysaa nimankii baabuurta waday way jactadsan yihiin horbalaahi caleyk noo baneeya meeshaan may askartii la hadlay askartii waxay annagaa la hadlayn saraakiisha la sugaya marka lugooyada waxa uu sheegay way artukaan luqaafo iska daba wareeg hadaa aragto waa nimankaasaa lagu leeyahay marka sheekadaas waalan ayaa socota dhan walba marka way kaaga keenayaan nimankan gargaarkii waa kaaga keenayaan halkan waa kaaga keenayaan xabad waa soo ridayaan wax walba oo ay wax ku kala furi karaan oo heshiiskan ay maaragtay ku kala daadin karaan way samaynayaan hadduuba u hirgalayo marka waa arki doonaa kolley wuxuu soo kordhaa barnaamijkaygii ugu horreeyey maantoo jimcahana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa fakari aragti waxaad noo haysaan noogu soo qora qaybta commentiska laagareeya oo sheergareeya barnaamijka inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo